guriga ninka odayka hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su'aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiba iyo guriga u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waa sharci kufri waa sharci islaam ma hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyaga iskale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anta wa maaluka li abika nin buu la hadlayay wuxuu ku yiri adiga iyo xoolahaagaba aabbaha baa idin leh hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay hadiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ninkaaga ciddii lahayd seebaa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshay waa midda labaade haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yiraahdaan waryaa gabadhii hawshaysan oo laga yaabo inay ama wax masaxayso ama wax maydhayso ama wax karinayso ama qof buko caruurti kamid ah hayso inuu yiraahdo waxa la keen raxmad baa la rabaa in xariis inuu muujiyo oo wixii uu guriga ka qaban karo aanu gabadhii ku eegan oo hadii uu marihii maydhi karo hadii uu aqalki xaaqi karo hadii uu cunto karin karo haduu shaaha soo karin karo haduu caanaha soo qasi karo haduu soo adeegi karo waxaas oo dhan shariicadu baabul ihsaanka soo gelisa ihsaanka iyo wanaaga iyo macaamilka wanaagsan markay aragto qofkii dumar ahayd ninkeedii oo sida nolosha u barbar taagan halkaas ay saaranaysaa hadalkiisa ay maqlaysaa dadkiisa ay ugu jeclaanaysaa noloshiisa ay jeclaanaysaa caruurtiisa ay jeclaanaysaa dadkiisa bay jeclaanaysaa ilaahay bay u bariyaysaa waa u ducaynaysaa mar walba raxmadda in la dareensiyo dumarka waa shay laga maarmaan ah turaalka in xariistaasi waa